Maduro and his wife, both indicted, gave up and were taken into custody by the Department of Justice, assisted by our incredible U.S. military. taliyaha ciidamada Mareykanka Geraldine Kennedy ayaa faahfaahin dheeraad ah waxa uu ka bixiyay qaabka iyo farsamooyinka isticmaaleen si loo soo qabto hogaamiyihii dalka Venezuela Nicolas Maduro oo malaayiin dollar ay madaxiisa dul saarneed. taliyaha ayaa xusay in howlgalkani ka koobnaa dhowr waji iyadoo bilo badan la raadinayo xogo sirdoon oo la xiriira Maduro sida nolol maalmeedkiisa halka uu deganaa iyo xitaa cunooyinka uu badan yahay. wuxuu sheegay markii intaasi uu xoga la helay haddana laga fikiray maalinta ku habboon si loo yareeyo khasaaraha dadka rayidka ah. We arrived at Maduro's compound at 1:01 a.m. Eastern Standard Time or 2:01 a.m. General Kennedy waxa uu sheegay in ciidamada Mareykanka iyo diyaaradaha ay wateen xarunta uu deganaa madaxweyne Nicolas Maduro ay gaareen 1:00 am oo habeenimo ee waqtiga Venezuela. waxa uu sheegay in helicopter ay leeyihiin ciidamada Mareykanka rasaas lagu furay balse ciidamada ay ka jawaabeen isla markaana mid kamid ah diyaaradihii ay wateen ciidamada ay waxyeello soo gaartay. wuxuu intaas ku daray in madaxweyne Maduro iyo xaaskiisa ay ugu dambeyn isku dhiibeen ciidamada Mareykanka iyadoo oo la saaray markab dagaal oo ay leeyihiin ciidanka iyadoo intaasi kadibna lagu wareejiyay wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka. dhinaca kale madaxweyne Trump oo hadlay ayaa sheegay in inta laga helayo dawlad shacabku raali ka yahay ay iyagu sii maamuli doonaan dalka Venezuela.